السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مقالكينا مانتا horta before aan guda gelin khayr Allah idin siiyo sida fiican ay soo dhaweyseen maasha Allah aninkana waa idin xiisay marka aan noo bilaabo videogeena maanta sheeko kaliyan wadaa qofka wuxuu ku bilaabay waxa igu dhacay xanuun caafimaadkayguna wuu sii xumaaday waxaan bilaabay inaan dareemo xanuun caloosha ah markaas baan u tagay dhakhtarka wuxuu ii sheegay inaan leeyahay buro wax soo bararay taasoo ah cancer dhakhtarku wuxuu ii faahfaahiyay qorshaha daaweynta wuxuuna ii qoray daawooyinkaygii dabadeedna waan soo baxay waan naxsanaa sheekadan horta wiil baa qoray waan naxsanaa waan rumaysan waayay balse isla markaa waxaan ku qanacsanaa wuxuu alla subxaanahu wa tacaala ii qoray markiiba daawooyinkii ayaan akhriyay oo ogaaday saameynta jirka ku yeelan karto mid ka mid ah daawooyinkii waxa ku qornayd inay sababi karto ma dhalaysnimo ama infertility inuu wax dhali karin waana inaan qaato dhammaan daawooyinkan si kansarka uu iga baaba'o biidnillah markaas dib baan ugu noqday dhakhtarka waxaan ku iri daawadan waxay sababi kartaa ma dhalaysnimo ama infertility dhakhtarku wuxuu yiri daraasaadkii hore ee arrintan lagu sameeyay ama kaniinigan ma ahan kuwa sax ah ha ka walwalino ku kalsoono Ilaahay subxaanahu wa tacaala daawooyinkii markaan qaatay ka bacdi waxaan ka soo wareegtay 5 ilaa 6 sano walina maysan noqon inaan Ilaahay wax na siiyo ubad ah xaaskaygu waxay wada talisay inaan dhakhtar kale u tagno si aan isku baarno waxaan isla marnay dhakhtar ilaa dhakhtar kale ugu dambeyn waxaan helnay dhakhtar aqoon badan leh wuxuu ii weydiiyay magacyadii daawooyinkii aan hore u qaatay markaasna waxaan u sheegay daawooyinkii oo dhan dhakhtarku wuxuu farta ku fiiqay daawadii sababi kartay ma dhalaysnimadeedii ama wax inaan dhalin igu qasabtay wuxuuna yiri haddii aad daawadan qaadatay rajo ma jirto waan murugooday qalbigaygana culays badan baa saarnaa xaaskay waxay isku dayday inay dejiso iyadoo ilaa waa inaan ku qanacnaa wixii Allah noo qoray insha Allah wuxuu noogu bedeli doonaa wax ka wanaagsan si kastaba ha ahaatee fikrado badan ayaa maskaxdayda ku abuurmay xaaskay way ka tagi doontaa maxay ula joogaysaneen aan wax dhalaynin maskaxdayda intaas baa ka guuxayay maadaama aan caruur aniga siin kari waayay dunidii dhan baa mugdi ugu noqotay aniga dhan waa murugooday waxay noqotay waqtigii aan u dhoofi lahaa UK si aan waxbarashadeeda u sii wato anigoo markaan safray airportka anigoo jooga ayaan aayado quraan si lama filaan ah maskaxdayda ku soo dhacday suurta nuux aayada 10 ilaa 12 aayadaasi waa aayadii ka hadlaysay istighfaarta iyo fadligeeda marka wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan ku celceliyo istighfaarta inta aan safarka ku socdo waxaan ku dhaartay inaan joojin markii aan UK gaaray oo taleefankaygii shiday waxaan helay fariin xaaskay ka timid waxay tiri ma dareemeynin wax caafimaad ah markaas waxaan dhakhtar u tagay bal qiyaas waxay dhaheen waxay dhahday su'aal ay weydiisay markaas waxaan ku dhahay ma garanay maxay dhaheen waxay u dhaheen uur ayaa leedahay waan naxay maskaxdeydii marna anigoo murugadii zaa'idkii ahay farax badan buu isku bedelay waxaan go'aansaday inaan sheekadan la wadaago qof walba si ay u ogaadaan haddii aad xanuunsan tahay haddii aad dhakhtar ku yiraahdo waxba ma noqonaysid ama wax ma dhali kartid haddii daawooyinkii lagu keenay haddii daawooyin hore u qaadan jirtay dhibaatooyin ku gaarsiiyeen waxaasoo dhan wax muhiim ah ee leedahay ma jirto haddii aad Allah weydiisato cafis ama istighfaartaada aad badiso si daacad ah u duceysato Ilaahay wuu ku jawaabayaa insha Allah haddii aad caruur rabtid Allah weydiiso cafis haddii aad rabtid shaqo haddii aad rabtid lacag haddii aad rabtid maskax in lagu dejiyo walwalka baabo waxaasoo dhan weydiiso Allah subxaanahu wa tacaala isaga insha Allah waxa ku siinaya marka sheekada maanta intaas inoogu eg tahay waa sheeko iska gaaban marka khayr aan isku ognahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh